A sister from Ethiopia phoned me and said, our people are dying, our children are dying. Mother, do something. Mama Teresa waa haweeney wadaad Catholic Roman ah oo nolosheeda oo dhan u hurtay faafinta diinta Kiristanka iyadoo hawsheeda faafinta diinta ku qarinaysay arrimo samafal la xiriira iyo inay caawinayso dadka saboolka ah. waxay asaastay urur diimeed kaasoo ku shuqul leh dadka saboolka ah. hawlgalkeedii qarsoodiga ahaa halka ay saldhigga uga dhigtay waa dalka Hindiya. tani waa sheekada Mama Teresa oo aan warbixintan ku soo qaadanayno. Mother Teresa was busy, as usual, saving the world. And I mean that quite literally. Mama Teresa waxay dhalatay 26 August sanadkii 1910. waxay ku dhalatay magaalada Oskub oo hadda loo yaqaano Skopje, haddana ah caasimadda dalka Macedonia. xilligaas magaalada Skopje waxa maamulayay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Teresa qoyskeedu waxay ahaayeen qoys Kosovan Albani ah. Mama Teresa waxay ahayd diin faafiso ku soo gaban jirtay arrimaha samafalka. waxay asaastay urur diimeed hoos yimaada Catholic Roma. ururkeeda waxaa ka howlgeli jiray in ka badan 4500 oo macallin oo 133 waddan oo caalamka kala joogay. ururkeedu waxa uu qaban jiray arrimaha caafimaadka, la talinta carruurta iyo qoysaska, taakulaynta danyarta iyo agoomaha iyo gacan ku haynta goobaha waxbarashada. waxay macallin ahaan u tagtay dalka Hindiya, waxayna degtay magaalada Kolkata ee dalka India. waxayna halkaas ka qabatay hawl ku adkaatay Ingiriiskii gumaysan jiray dalkaasi Hindiya oo ah in dadka reer Hindiya la kiristaameeyo. dadka reer Hindiya waa dad ku adag diintooda Hinduusamka intooda haysta. laakiinse Teresa isku qarintii arrimaha samafalka waxa ay sababtay in maanta bulshada Kiristaanka Hindiya ay gaaraan 2.3 iyadoo markii hore xitaa ay ka yaraayeen 0.1. Teresa aad ayaa loogu maamuusay hawsha weyn ee ay qabatay, waxayna ku mutaysatay abaalmarino badan oo xaqiiqadu tahay in lagu siiyey guulihii diin faafinta ee qaaradda Asia ay ka waday gaar ahaan Hindiya. abaalmarinada sare ee la siiyey waxaa ka mid ah abaalmarinta Bob John Peace Prize oo la siiyey sanadku markuu ahaa 1971. abaalmarinta Kennedy Prize waxa la siiyey 1971. sidoo kale abaalmarinta la yiraahdo The Nehru Prize iyadana waxa la siiyey sanadku markuu ahaa 1972. abaalmarinta la yiraahdo Albert International Prize waxa la siiyey sanadku markuu ahaa 1975. waxa sidoo kale la siiyey sanadii 1994 abaalmarinta la yiraahdo Gold Medal. sanadku markuu ahaa 1996 16 November Teresa waxa lagu abaalmariyay muwaadinimada dalka Mareykanka, baasaboorka dalka Mareykanka. 1979 waxa la siiyey jaaisada dunida ugu qaalisan ee la yiraahdo Nobel Peace Prize. sanadkii 1985 waxa la siiyey abaalmarinta la yiraahdo Medal of Freedom oo uu bixiyo madaxweynaha dalka Mareykanka. xilligaas waxa siiyey madaxweynihii dalka Mareykanka ee waqtigaas Ronald Reagan. madaxweyne Reagan oo ka hadlayay munaasabadii uu ku guddoonsiinayay Teresa abaalmarintan waxa uu yiri, abaalmarinta Medal of Freedom waxaan siinaa haliyeeyada aan ku faano oo dalkeena wax u qabtay. laakiinse ayuu yiri Teresa ma aha muwaadinad Mareykanka u dhalatay, laakiinse waa gabadh ka soo jeeda Yugoslavia. nolosheedii yaraanteediina kuma qaadan dalka Mareykanka, waxayse ku qaadatay dalka Hindiya. waxayna abaalmarintan ku mutaysatay hawshii fiicnayd ee ay qabatay. Mother Teresa was busy, as usual, saving the world. And I mean that quite literally.
And so we rather appreciated her priorities, and we're very happy indeed that she could come to America this week. Now, a moment ago, I said we'd awarded the Medal of Freedom to heroes who've done our country proud. And I believe Mother Teresa might point out here that she is most certainly not an American, but a daughter of Yugoslavia. And she has not spent her adult life in this country, but in India. However, it simply occurred to us when we wanted to honor her that the goodness in some hearts transcends all borders and all narrow nationalistic considerations. Some people I am most unworthy of this generous gift of our President, Mr. Reagan, and his wife, and you people of United States. But I accept it for the greater glory of God. Teresa, marka laga yimaado diin faafinteedii waxaa jira doodo badan oo ay ka dhex abuurtay bulshada reer Hindiya taasoo ahayd aragtideeda in ilmaha la iska soo rido iyo ka hortagga uurka oo ay aaminsanayd yaraynta dhalmada. Waxay ahayd doodihii iyo muranadii ugu cuslaa ee ay Teresa nolosheeda gashay. Laakiinse waxay kaga tagtay doodo arrintaas iyo arrimo kaleba ku saabsan bulshada reer Hindiya dhexdeeda oo ilaa iyo hadda bulshada reer Hindiya doodahaasi ay dhex yaalaan. Mama Teresa University waxaa laga dhisay gobolka la yiraahdo Tamil Nadu oo dhaca koonfurta dalka Hindiya. Jaamacaddan ujeedkeeda waxaa lagu sheegay markii hore sare u qaadida tacliinta iyo horumarinta gabdhaha. Waxayna bixinaysay adeegyo la talin iyo cilmi baaris ku saabsan darasaadka haweenka. Laakiinse arrin la yaab leh ayaa jaamacaddii ka soo baxday. Waxaana la arkay in gabdhihii jaamacaddaasi dhiganayay in ay soo qalin jabiyeen iyaga oo haysta diinta Kiristanka, gaar ahaanna madhabta Kaatoliga. Markaas kadib waxaa arrintaas ka xanaaqay wadaadada haysta diinta Hinduusamka. Waxayna sameeyeen kacdoon aad u ballaaran oo ay uga soo horjeedaan jaamacadda Teresa oo faafinaysa diinta Kiristanka.